Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mar kale iyo barnaamij kale oo xiiso badan. Kusoo dhawaada janaalka Bandhig. Waxaan maanta kusoo gudbin doonaa dalalka ugu xuduudaha badan caalamka. Horey su-aashaas ma isku weydiisay waa wadamada leh xuduudaha ugu badan caalamka. Kusoo dhawaa mowduucan. haddaba wadamada xuduudaha ugu badan la leh wadamo kale waxaa ka mid ah Turkiga. Wadanka Turkiga wuxuu xuduud la leeyahay 8 dal, waxaana ka mid ah Armenia, Georgia, Iran, Iraq, Syria, Azerbaijan, Bulgaria iyo Greece. Wadanka labaad aan u soo guurno qaaradda Afrika waa Tanzania oo iyadana leh 8 xuduudood, waxayna kala yihiin Kenya, Burundi, Uganda, Democratic Republic of Congo ama Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Zambia, Malawi, Mozambique iyo Rwanda. Markaana aan u imaano wadamo leh 9 xuduudood. Wadamadaasi waxaa ka mid ah wadanka Jarmalka. Wuxuu xuduud la leeyahay 9 wadan, waxayna kala yihiin Holland ama Netherlands saa u taqaanid, Belgiumka, France, Switzerland, Austria, Czech Republic ama Dutchka, Poland, Denmark iyo Luxembourg. Sidoo kale aan u imaano wadan ku yaala qaaradda Afrika oo asagana leh 9 xuduudood ama 9 wadan xuduudo la leh. Wadankaasi waxaa la yiraahdaa Democratic Republic of Congo ama Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Waxay xuduud la leedahay Burundi, Rwanda, Uganda, South Sudan, Central African Republic ama Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Congo Republic oo ka duwan Kongadan, Angola, Zambia iyo Tanzania. Haddaba aan u imaano wadan leh 10 xuduudood. Wadankaasi waa Brazil. Wadamada xuduudaha la leeyahay waxaa ka mid ah Suriname, Guyana, French Guyana, Venezuela, Colombia, Peru, Bolivia, Paraguay, Uruguay iyo Argentina. Sidoo kale waxaa jira wadan leh 13 daris. Wadankaasi waa Ruushka. Wuxuu xuduud la leeyahay Finland, Estonia, Latvia, Belarus, Norway, Ukraine, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, China, Mongolia iyo North Korea. Ugu dambeyn, wadanka Shiinaha ayaa ah wadanka ugu xuduudaha badan caalamka. Wuxuu xuduud la leeyahay 14 dal, waxayna kala yihiin Mongolia, Russia, India, Nepal, Bhutan, Laos, Vietnam, Myanmar, Kazakhstan, Tajikistan, Afghanistan, Kyrgyzstan, Pakistan iyo North Korea. Intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijkeeni maanta oo aad ku mahadsan tahay daawashada videogeena. Kusoo dhawaaw janaalka mar kale. Hana iloobin inaad subscribe gareysid janaalka